sida uu dhigayo jadwalka doorashada ee dalka Soomaaliya. Maanta oo ay bisha Disembar tahay 1 ilaa 10 bisha ayaa la filayay inay bilaabanto doorashada xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya, balse weli waxaan dhicin guud ahaan hawlihii ka horeeyay sida soo xulista iyo diyaarinta ergooyinka doorashada, kaasi oo guud ahaanba uu fashil ku yimi. Haddaba xubnaha guddida doorashooyinka heer federaal ee dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay wixii uu qabsoomay muddadii ay shaqaynayeen iyo in ay weli ka dhiman yihiin 4 xubnood. Cabdijibaar Cabdilaahi Farax oo afhayeenka ku meel gaarka ah ee guddidan ayaa warbaahinta arrimahani kala hadlay, waxaana uu yidhi: saxaafadeedkan waxaynu ku bilaabi doonaa muddadii uu jiray guddida doorashooyinka dadban ee heer federaal, waxyaabihii u qabsoomay, hawlaha u qabsoomay guddida hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal Muqdisho. maanta oo taariikhdu tahay 1 Disembar 2020, shirkan jaraa'id waxaan u qabanay inaan ku iftiimino waxyaabihii u qabsoomay guddida hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal oo labadii toddobaad ee u dambeeyay shiro joogta aan ku lahayn hotel Dakaale ee magaalada Muqdisho. wuxuu guddida ka kooban yahay xubno ay magacowday xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa ka yimid xubnaha dowlad goboleedyada ee qaybta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. wuxuuna ka dhashay heshiiskii siyaasadeed ee madaxda labada heer ay ku gaadheen magaalada Muqdisho 17 Disembar 2020. magacaabista guddidan waxay ka timiday kadib habraacyadii heshiiskaas la dhameystiray ayna ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, una saxiixay madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. tan iyo intii guddidan hawshiisa ku guda jiray waxa uu qabsoomay ama noo qabsoomay inaan dhameystirno qodobada soo socda: tababarka hirgelinta doorashooyinka dadban, guddida xalinta khilaafaadka iyo guddiyada maamulaya doorashooyinka Somaliland iyo gobolka Banaadir, qabiil qoraalka xeer hoosaadka guddida hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal, xeerka hufnaanta doorashooyinka oo tilmaamaya sida ay doorashooyinku u dhacayaan, sida diiwaangelinta loo sameynayo iyo shuruudaha laga rabo dadka tartamaya iyo codbixiyaasha, xeerka odayaasha dhaqanka, bulshada rayidka iyo ergada doorashada, xeerka habraaca diiwaangelinta ergada. waxa kale oo guddidu hadda gacanta ku haya shuruudaha habraaca jalwadka doorashooyinka iyo diiwaangelinta musharaxiinta u taagan kuraasta golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo habraacyo kale oo muhiim u ah qabsoomidda doorasho hufan oo hanaankeedu wanaagsan yahay isla markaana waqtigeeda ku dhacda. waxa hawlaha haatan socda ka soo qayb galay oo kooramka jooga waxa weeye mataqaanaa xubno gaaraya 20 xubnood, 25 xubnood ee magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, isla markaana ku soo baxay digreeto rasmiya muddadii taariikhdu ahay 4 November 2020. guddidu intii ay shaqaynayay wuxuu xiriiro kala duwan la yeeshay qaar ka mid ah xubno 4 oo ilaa haatan naga maqan, oo xubnahaas oo ahaa 4 xubnood oo ay soo kala magacaabeen dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowlad goboleedka Puntland. xubnahaas walaalahayna ee magacaaban balse ilaa hadda aan soo xaadirin oo caqabad taagana, isla markaana maanta muhiim u ahaan lahayd inay joogaan si hawlaha shaqada ee hadda waxa weeye qaranku noo igmaday aan u dardargelino. kulamada qaar ka mid ah noo sheegeen inay nagu soo isla markaana ay noo sheegeen markii xidho kala duwan la sameeyay inay nagu soo biiri doonaan, balse ilaa haatan aanay wax ka suurtagal jirin. haddaba anagoo og in muddo bil ah uu jiray guddidan, haddana jiro dib u dhac jalwadeed oo saameeyay waqtiyadii loo balansanaa in doorashada loo dareero. waxaan rabnaa inaan mar kale ku baraarujino in sida ugu degdegsiga badan noogu soo biiraan, maadaama ay maalmo kooban uun naga xigto xilliga loo asteeyay doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenka oo diyaarinteeda aan hadda ku guda jirno, isla markaana guddi u saarnay. waa muhiim in xilligan adag iyo waqti kale oo dheeri ah dalka aanu ka sii lumin, laguna sii jiri karin waqti kale oo dheeri ah inuu sii lumo. mar kale waxaan rabnaa inaan halkan ka cadeeno in shaqada guddidu ay meel fiican marayso, si dhaqso ahna
aan u gudageli doono waajibaadka naga saaran inaan dalkan gaarsiino doorasho waqtigeega ku qabsoonto oo xor iyo xalaal ah. Wabillahi tawfiiq.